Bismillah. Hadda waxaan u gudbaynaa qaybta iibka iyo siyaabaha loola soconayo shay walba dhaqdhaqaaqiisa iyo hawshiisa. Waxaad tagaysaa qaybta main menu-ga burger-gaad tagaysaa, alaabtii baad tagtay, alaab markaad tagtid dar hoosaadka sii tag, iibka taxidiisa tag marka. Iibka taxidiisa haddaan tago waxaa ii soo baxaya alaabtii iibka ahayd oo ii taxnaanaysa. Shayba shaygu ka dambeeyay oo la iibshay buu kuu soo taxaya. Waxaa halkan ka muuqda midabo kala duwan oo iibka uu leeyahay. Midabka hadduu casaan yahay micnuhu waxa weeye dayn baad kuga iibisay alaabta. Haddii uu madow yahayna caadi baad u iibisay oo kaashkii lacagtii cadaankii baad qaadatay. Hadduu buluug yahayna waxaad ku qaadatay weeye SMS baad ku qaadatay fariin oo sida dahabka, EVC-ga, sahal, zaad magacyadaas. Waxaa soo raacda waxaa kaloo kuu muuqanaya rasiidka wixii meeshii lifaaqa wixii aad ku qoraysay iyana waa kuu muuqanaysaa xusuusta ahayd. Masalan halkaana waad aragtaa oo damiin cali baan ku qoray. Intaasoo dhanba way kuu muuqanayaan. Waa iibkii oo taxidiisii ah. Haddaba haddii aan halkan shay taabto masalan waxaa ii soo baxaya raadraaca shaygan raadraaciisa. Sokor buu ahaa shaygaani sokor suudaani buu ahaa. Sokor suudaani baan taabanayaa. Marka aan taabto waxaa ii soo baxaya marna waxaan ku iibinayay qiimo 9.20 iyo bar ah. Kun buu ahaa markaas 120 baan ka iibshay. Markii dambe 880 baa xisaabkaygii u noqday. 9.20 baa qiimaha aan ku iibinayay 80 shay baan ka iibshay. raadraaci waka. Waxaa kuu soo raacda haddii aan doono kaba soo qaba bariiskaasaan taabtay waxaa ii soo baxaysa 500 buu ahaa 310 baad iibisay qiimahaasaad ku iibisay 390 isagoo ah haddana qiimaha aasaaska ah 90 shay baad iibisay. Marka waxa weeye waa raadraac dhan oo dhammaystiran oo history aad ka soo galaysid wixii dhaqdhaqaaqi aad samaysay. Iibka dhankaas waa ka sidaas. Mar labaad waxaad samayn kartaa taxidan waad iska dhaafi kartaa oo si dulmar ahaad calaa shay isugu qaban kartaa. Wax walba oo isku magac ah waad isku qabanaysaa. Masalan bariiska basmatiga ah 400 baa iibisay. Intaas lacagta aad ka qabatay ay tahay sokorta Brazil-ka kan qiimayaalka xitaa haddaad kala bedeshay uu isugu kaa daray. Waxaad ogaataa midabadan kala duwan dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay oo aad samaysay midabkiisu qaadanaya. Haddii uu dayn ahaa casaan buu qaadanaya guduud. Hadduu ahaa SMS ahaana kaasuu qaadanaya. Haddii uu dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay ahaa kaash ahaana midabka madowgiisa haysanaya. Waxaa marka aad samayn kartaa inaad shay walba si gaar ah u sii raacdid oo raadraaci haddana sii gashid. Masalan sokorta suudaaniga aan taabanaya haddeer waxa ii yaala waa intaas 880 weeye aasaaska aan xisaabtan ku bilaabay 80 baan iibshay 9.20 baan ku gaday. waa la mid shay walba goonidiisa aad u taaban karaysaa. Marka iibka dulmarka ahi saasuu ku wanaagsan yahay oo macnaha waxaad isku qabanaysaa shay walba oo isku magac ah. Waxaa ii soo hartay iibkii baan mar labaad tagay waa tahay. Waxaan tagayaa wixii maalin ah maalintaas wixii la qabtay joornaalka. Maalintaa wixii joornaal ah joornaati ah joornaal baa la yiraahdaa wixii maalin la ah oo maalinta aad iibisay nooc walbaba iibkaasi ha ahaado ama dayn ha ahaado ama fariinta ha ahaado ama kaash ha ahaado naqdi u qaada lacagtaada wakaas maalintii iyo guud ahaan. Haddii aad doonaysid inaad kala soocato alaabtaad tagaysaa iibkaad tagaysaa iibka markaad tagtid wixii dayn ahaa halkaasaad bal ka eegaysaa. War maxaan dayn ku qaatay maanta lacagta intaa la eg baa dayn taariikhdaas lacagta taariikhda wuu ku taxayaa maalin buu isugu kaa geynaya. waayahay haddii aad taabatid
maalintaas laftirkeeda wixii dayn aad ku bixisay iyo xusuusteediina waa helaysaa. sokor suudaani bay ahayd, rasiid nambarkaasa baa aad xusuus uga dhigatay. baris basmati buu ahaa, damiin cali baa ka ahaa, xusuus baad uga dhigatay, saasaad ku heli karaysaa. waxaad ku laabatay alaabtii, mar walba alaabtaad tegaysaa. iibkii baan tegay, waa si la mid ah wixii sms ah, wixii cash ah. masalan cash baan tegay cadaanka ah, wixii cadaan ah wixii aan iibsaday halkaasaan taabanayaa. halkaana waa ujeedaa waxaa kaaga soo baxaya iibka wixii cash aad ku qaadatay, baris basmati ah iyo sokorta suudaaniga. intaasba waa iibkii wakaa qaybta iibka iyo isbedeladiisa. intaas waad ku ogaan kartaa oo dhaqdhaqaaqiisa iyo wax walba waad kala socon kartaa. waxaa kuu soo hartay iibkii baad doonaysaa inaad kaydisid, oo wixii ku iibsamay baad doonaysaa inaad qof la wadaagtid. qof baad alaab u haysay, dhaqdhaqaaqii oo dhan iyo wixii oo dhan baad doonaysaa marka inaad bakhaarkii inaad la wadaagtay accountantigaaga, xisaabiyahaaga. kaydsaad tegaysaa, goormaad kasoo bilaabaysaa? 20kii bisha kasoo bilow. okay, waxaad geysaa ilaa 24kii bisha, 25kii bisha ii imowdhe. ii kaydi baan idhi. ii kaydi haddaan idhaahdo faylkii oo excel ah baa isoo baxaya. dib u xusuuso markii aynu setupka sameynaynay, settingkii hore aan rakibaynay, meel email kugu soo baxaysay email gasho, halkan oo kale ka anfacaysa. shardi ma aha email kaliya inaad wax ku diri kartid. whatsapp baad ku diri kartaa, waxaad ku diri karaysaa maxaa la yiraahdaa fiber, waxaad ku diri karaysaa imo, waxaad ku diri kartaa cm transfer haddii qofku kuu dhow yahay oo kale, ama bluetoothka. waxyaabo badan baad ku diri kartaa. masalan annagu hadda tusaale waxaan usoo qaadanayaa inaan ku diro gmail, inaan ku diro baan tusaale usoo qaadanaya. emailadii aan ku qoraynay markii aad arkaysay waa kuwa. iibkiina waa kaa faylkii iibka isagoo attachment ah oo ku lifaaqan. waxaa kuu soo raacda faylka laftirkiisa iibka iyo taariikh baa ku qoran. masalan taariikhda qaybta hore waxay sheegaysaa laga soo bilaabo, qaybta dambena waxay sheegaysaa ku eg muddadaas ilaa muddadaas, maalinta goortaas ilaa goortaas. isagoo attachment ah, subjectina ah, fariintana ah, intaba wada ah. waa lagu diyaarshay, isagaa ku habeynaya programku. wakaas meeshaas diridda baan taabanayaa kaliya. hadii gmailka haddaan idhaahdo dir, wakaa sending message toos buu u diraya xisaabtaadii. xisaabtaas qofku waa la wadaagi kartaa, waa shirkadii, waa accountantigii, waa qof kale oo macnaha aad wax wadaagtaan ama aad wax u haysay alaab gaar ah, siday rabteen waxay rabteen noqon karaysa. waxaa kuu soo hartay iibka noocaasa. kaydka wixii aad kaydisay baad mar labaad ku noqon kartaa oo aad u diri kartaa dad kale iyo ummad kale iyo qof kale u diri kartaa. hawsha intaas qaybtii iibka iyo fiirintiisa iyo sida loo eegayo iyo la socodkiisaba, intaas waxaan u malaynayaa inay tahay in nagu filan.